dalka Mareykanka waxaa si xawli ah u sii fidaya cudurka coronavirus waxaana dalkaasi lagu soo warinayaa in xarunka coronavirus uu u gudbay xayawaanka halka markii hore uu ahaa dadka kaliya. Shabeel dhadiga wadadiisa lagu qiyaasay 4 sano jir ayaa noqday xayawaankii ugu horeeyay ee uu ku dhaco cudurka coronavirus waxaana shabeelkan oo ku nool beerta xayawaanka lagu xanaaneeyo ee Bronx. Saraakiisha maamusha beerta Bronx oo ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in shabeelkan lagu arkay calaamadaha coronavirus waxayna tilmaamayaan in baaritaan lagu sameeyay lagu xaqiijiyay in coronavirus uu ku dhacay shabeelka. Caabuqa coronavirus oo ay qaadeen mid ka mid ah ilaalada duurjoogta ee ku hawlgalayay xerada xanaanada xayawaanka ayaa la sheegay in uu shabeelkani ka sii qaaday coronavirus. cudurkan coronavirus ee ku sii faafaya caalamka ayaa markii hore la ogaa in kaliya uu ku dhaco dadka caadiga ah waxaana hadda soo baxday in cudurku xitaa uu ku dhacayo xayawaanka ayna isku sii gudbinayaan xayawaanku. cudurkan coronavirus oo farabaan ku haya caalamka oo idil ayaa waxa uu adduunka oo dhan la tacaalayaa sidii xanuunkan loogu heli lahaa dawadiisa iyadoo uu maalinkiiba dilayo dad aad u tiro badan halka tiro badanna ay sii qaadayaan. محمد عبد العثمان محمد فرد رسمني ستيفي مقدشو.